muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa xasuusihii uu nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ka qoray sargaal ka tirsanaa hay-addaasi sannadkii 1976 ilaa 91 waxaa lagu magacaabaa xiirane. howlgalladii uu sida gaarka ah uu kaga qayb galay master xiirane iyo awooddii ay lahayd hay-addii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya NSS ayaa loo soo gaabin jiray oo ahayd National Security Service. mawduuceenna maanta ee qormada master xiirane waxay ku bilaabanaysaa sidan. waxaan ka dhoofay xamar December horraanteedii sannadkii 1977 waxaan u dhoofay Abidjan saaxil alcaaj anigoo sii maraya Nigeria oo aan ku diga roganayo. ujeedka socdaalkayga ma ahayn in aan ka qayb galo dabaaldegga maalinta qaranka ee dalkaasi ee wuxuu taliyaha laanta nabad sugidda oo shaki weyn ka qabay hufnaanta qaar ka mid ah danjirayaasha Soomaaliyeed ee dalalka qaarkood noo fadhiya ayuu ii xil saaray inaan si hoose ula socdo fariin loo dhiibay nin aan filaya inuu ahaa danjiraha Soomaaliya ee Faransiiska fadhiyay xilligaasi inkastoo aanan hubin magaciisa. Felix Puani oo xilligaasi ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Ivory Coast. xaashida waxaa la socday fariin afka ah oo xoog badan taasoo ka muhiimsaneed waxa ku qoran waraaqda una badnaa salaan iyo hadal maamuuska madaxda ee isweydaarsato. madaxweyne Felix wuxuu isku dayay inuu dhex galo Soomaaliya iyo Kenya oo markaasi cabsi badan ka qabtay ciidankii xoogga dalka Soomaaliya oo inta badan jiray furmihii xoogaga xabashida inta badanna ka xoreeyay dhulkii Soomaali galbeed. Jomo Kenyatta oo xilligaasi ahaa madaxweynaha dalka Kenya wuxuu warbixin ka haystay awoodda ciidanka iyo midda xirfadeed ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya taas oo ay muujinayaan ciidamada. fariinta madaxweynaha Soomaaliya sida la iga soo siiyay xaruntii NSS-ta wuxuu nuxurkeeda uu ahaa Soomaaliya haatan inaysan diyaar u ahayn guluf colaadeed oo ay ku kicisa Kenya haddii ay Kenya u ogolaadaan shacabka Soomaaliyeed ee NFD inay aayahooda ka tashadaan haddii ay ka mid ahaanayaan Kenya iyo haddii ay Soomaaliya raacaan iyo weliba haddii ay doonayaan inay iskood ay u noolaadaan. waa waxa kaliya ay Soomaalida kaga baaqan karto guluf colaadeed oo ay la gashay Kenya. maalintii dabaaldegga qaranka kadib waxaana looga yeeray casho sharaf oo ay ka qayb galeen marti sharaftii halkaasi joogtay. danjirihii Soomaaliya wuxuu la fadhiistay safiirkii Mareykanka waxaan anigu ku qasbanaaday in aan saldhigo meel aan ka fogeyn dhabarka ayaana sii xijiyey dhegahana isaga ayaan u raariciyey. nooca shaqo ee sirdoon waddan waa ay adag tahay in si sahal ah loo dareemo hase yeeshee gaf yar oo ay galaan ayaa nolosha saraakiisha nabad sugidda galaafan kara. waxaan ahay sargaal 2 sano oo keliya ka tirsan NSS-ta waxaan huwanahay magac iyo aqoonsi dal kale. waxaan ula muuqday dadka qaarkood sida inaan ahayn inaan warba ka haynin danna aanan ka gelin waxa ka socda dhulkan magaca eebba ugu dhaartay inaan nafteeda u huri doono ee Soomaaliya. afka Ingiriisiga kuma hadlo marka aan inkiraya Soomaalinimada. waxaan u dul yeelan waayay sidoo ergeyga Soomaalida ugu warramaya Ameerikaanku la fadhiyay oo agteeda kaga qornaa inuu yahay cadawga koowaad ee shicibka Soomaaliyeed ay leeyihiin sida xabashida iyo xoogaga la bahoobay. dacar ayaa igu kacday jihadii ayaa iga wareertay ergeyga Soomaaliyeedna sidaan ku aamusin lahaa ayaa igu baahday. waan istaagay sida inaan suuli rabo oo kale. shaari bayar oo ii saarnaa iyo maro weyn oo galbeedka Afrika laga xidho meel ayaan iska dhigay oo gabar yar oo dhuuban oo aan filayo inay ka mid ahayd adeegayaasha qasriga ayaan u dhiibay warqad yar oo ay ku qoran tahay NSS oo kaliya dushana Soomaaliya ayaan uga qoray waxaan faray inay u geysay ergeyga Soomaalida. kadibna waa ay u geysay oo sheekadii halkaa ayuu ku dareemay fariinteedii iyo waxay ahayd. halkaa ayaan ku soo gabagabeynayaa mawduuceenna kooban ee ku aadaneed warbixinadii koobnaa ee uu master xiirane ka qoray siday u shaqayn jireen hay-addii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NSS-ta. waan ka xumahay in master xiirane uusan dhammaystirin macluumaadka taasoo ku aadaneed wixii dhacay markii uu warqaddii fariinta ahayd uu u dhiibay sargaalkii la hadlayay ninka u dhashay dalka Mareykanka. warbixinteeda kale intaan ku kulmi doonno waxaan kaga tegayaa sida ay nabadgelyo. haddii aad ku cusubtahay barteeda Maracadde ku soo dhawow oo ka mid noqda asxaabta halkaani ku hela macluumaadyo kala duwan oo ku aadan arrimaha guud ee aan isleeyahay wax ayaa laga kororsan doonaa. muuqaalkan muuqaalka xigeentaan ku kulmi doonno nabadgelyo.